munaasabadan oo ahayd mid lagu dhiirigelinayo xulka gobolka Awdal oo ay soo qabanqaabisay shirkadda Soo ayaa ahayd madal si heer sare loo soo agaasimay. ugu horreyn waxaa madashaasi ka hadlay Cabdirasaaq Cabdilaahi Xasan Rakuub oo ah madaxa xiriirka dadweynaha shirkadda Soo. xafladan hadhima sharafeedka ahi waa maamuusid aanu maamuusayno xulalka kala duwan ee ku ciyaarayay magaca gobolka Awdal hadday yihiin maradoonka ama orodka cagta iyo kubadda gacanta ciyaartooyda kala duwan waa salaamaya iyo maamulkooda. annagu shirkad ahaan waxaanu gobolkan u sponsor garaynay xirfadooda ciyaareed aqoontooda kubadeed anshax wanaagooda taasoo laga majeeranayay intii tartanku socday oo laga arkayay waxaan idinku hambaliyeynayaa ciyaar wanaagii aad la timaadeen waxaan idinku hambaliyeynayaa anshax wanaagii aad la timaadeen waxaan idiin rajaynayaa sanadaha soo socda ama sanadka xiga sidaad sanadkii horeba u hanateen koobka inaad u hanan doontaan insha Allah haniyad jabina koobku goboladeennu ku dhex wareegaya idinkaa hayay insha Allah qaar kala hayn doona. annagu ka shirkad ahaan waxaan jecelahay marka haddii koobka hayeen kooxdan sponsor garaynay inaan kooxihii kale sponsor garaynayna ay koobka insha Allah inoo soo qaadaan oo aanu meel durugsan inaga tagin. dhankiisa isaguna halkaas waxaa ka hadlay madaxa howlgelinta shirkadda Soo Cabdiraxiin Maxamed. ciyaar xumo kumeedaan hadhin maamul xumo kumeedaan hadhin akhlaaq xumo kumeedaan hadhin laakiin kubadda oo ay caadadeeda tahay in la kala guulaysto ayuunbaa xagga aad soo gaadheen keentay. runtiina waxaan aad aan idinku hambaliyeynayaa ciyaar wanaaggii iyo isku duubnidii kooxaha aanu haysanno waxaa ka mid a kooxdii championka ahayd oo runtii lagu majiiranayana marka gobollada Somaliland oo dhan la eego anigoon waxba ku darayn runtiina kuwa kalena uu sheegay markaan la hadlayo meel kubadda dhabta ah ee professionalka lagu ciyaaro oo ka fadhiya iyo kubadda ku jira garoonka ku jiraaba aanay kala dhicin waxaan ogahay inay Awdal tahay. gabagabadii halkaas waxaa ka hadlay isiduwaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha gobolka Awdal Xasan Siciid Guuled uga mahad celiyay shirkadda Soo sida ay u garab taagan tahay ciyaaraha gaar ahaan gobolka Awdal. waxaanu yidhi runtii goobtan aan isugu nimi ilaahay waa mahad iska leh suuqeen keenay goobtan runtii waa munaasabad aad u ballaaran oo qada sharaf ah oo ay noo sameeyeen bahda Soo ama shirkadda Soo. shirkaddu 3 gobol ayay barbar istaagtay runtii laba magac ayaan huwanayn kii gobolka Awdal iyo kii shirkadda ee Soo. shirkaddu aad iyo aad u mahadsan yihiin sida ay noo barbar istaageen ayaan anaguna u barbar istaagaynaa. Cabdiqaadir Cudi, Honkable TV, Hargeysa.